السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماشيني وماشيدي وماشيني وجنلكي مدرع حسين ماشي قطع ونسين ده إني قوم من إني تجانا إني فرحية إني قلنا حدي أنا كوجو علوسنا هاي كوجو نوع عصبت هاي أنا كوجو علوسنا هاي سبسكرايب كا شير تنا جمعها نوحي توجي لايك لدع حدي أدنى رسي جوكتنا سيدا أول بنولو جوكتي وإن السلامي تيم كمدن حسين أدات يا بين السلامي waxbayaan hadal inagu daalinay caawa waxay ka shidan tahay dhanka jacaylka ayay ka shidan tahay albaabada jacaylka la furay caawa bal daawo jacaylka meesha ka dhacay daawo gaariga السلام عليكم ايه عنها الحمد لله والله سيتها ما شاء الله والله الحمد لله سيتها والله فرح سنينا كوارك والله انت اسمينا اركين وادكم عاد سنتين اللي قصوا اقرشينا سيتها هناك سنتها والله بوقتها waxaan ku wacay iyo xaaladaynu ku sugannahay Soomaaliya فرحسن تهاي لكونن كيسا waxay ku faraxsan tahay aragtidiisa waxay ku faraxsan tahay hariyadiisa waxay ku faraxsan tahay wax kasta oo xaqiisa ka yimaada waxay dareemaysaa jacayl isaga ayay jeceshahay qalbiga ayay ku haysaa niyada ayay ku haysaa isaga ayay sugaysay waxay ku leedahay waan ku faraxsanahay intaan ku arkay waayo waxa qalbigeeda ka gooxaya ereyadiisa waxa niyadeeda ku jira oo dhigiheedu sii maqlayaan hadaladiisii ugu dambeeyay sadraadeed waxay ka tiri waan ku faraxsanahay la kulankaaga intaan kula kulmay waayo muddo dheer ismaan arag waayo labada qof ay jecel muddo dheer markay kala maqdaanaana waa iska garanaysiin dhibta iyo mid walba midka kale waxa uu dareemayo waa wax aad weyn laakiin hadalka ani xanuuniye waxa weeyaan wuxuu yiri waa dareemaysaa xaaladdan ku sugannahay say tahay dhulka jawiga Soomaaliya ma ogtid betro may waxba kama ogi buuri maxaa loo aragtaa jacaylaan gareynayaan oo arkaan oo ay gacan xanuunayso sida ay gacantayda u duuban tahay isna gacanta u duubanta la socod wanaagsan real isku day inay fahanto walaal ilaahay ku dar ay know waan qaldamay laakiin maxaa sameeyaa marka sidee ku fahmaa okay maxaa sameeyaa way hay isha maxaa sameeyaa ma ogtahay dhibtaan u maray inaan kula kulmo waay waxay hadda sababta ay waxay sheegay please waa ogtahay inay dibadda dibadda u soo baxo marka waa soo qasbay waa soo baxay ma fahamsan macnaha والله halkan ka bilaabo ma garanay laakiin waxaan ku soo wacay inay fahanto oo aan Israa'iil gelino oo dacafiso oo farxadeeni iyo teamka antay waxaan fahanay anigu labadan qof horta inuu ka sii dhaxay markii hore jacayl macaan aad u xiiso badan midka kale aw raali gelinay ixtiraamay laakiin iyadoo ay xogaa daaqada ka irbudi ku cilaysay ninka jawi hawada iyo nolosha ay ku cilaysay sida daraadeed aw isaguna samirka xarkaha adkaystay sida daraadeedna aw xageegii ay ku soo badatay hawsha jacaylka ay ku timiday leena labada qof mid buu ku horeeyaa midna uu ku dambeeyay isaga markay xagiisa ay ku timi iyo xageeda ay ku timidayna ay soo daadsatay xarkaha oo ay doonayso afis ina loo fidiyo afis bay doonaysaa ina loo fidiyo la socod wanaagsan muu cafin doona mise ma cafinayo iniga ayaa itusi maya kaya kala ramada ku sheegayso ila ku sheegay midkaya walaalkaya aadi aad isku qanacsantahay dareen kala marka waxa aniga ay soo raadisay aqoonta ay soo raadinayso qof farxad ku jira miyuu dadka soo raadiyaa ma ku soo raadin lahaa haddaan farxad ku suganahay soo farxadayda iyo noloshayda iska maansan wateen hadaba mid aan ku sheegay may ma soo raadiseen qof farxad ku jira dadka ma soo raadiyo laakiin qofka marka halka ka xanuun ka dareemaysid bal soo raadiyo halka ay ka tabayso waxaan diyaariyay ku jeclaa waxaan
rajaynaya in xaggaaga farxad dhammaystiran aan ka heli doono markii aan ku jeclaaday noloshayda dhan ayaa isbedeshay waxay noqotay mid aad iyo aad u mugdi ah waxaa galay xabsi waxaa noqday qof oo dulman ah marka farxaddii aan kaa raadinayo haddii aan kaa waayo waxaan ku hadlo ma garanayo waxay raatana ma garanayo hadalladuu leeyahay daawo wuxuu yiri waxaan ka raadinaya agtaada farxad markii aan ku jeclaaday run ahaantii noloshaydu way isbedeshay kaliya noloshaydana qofka bedela adiga ayay ahayd adiga ayaana sidaa ii bedelay maadaama sidaa ii bedeshayna waxa aad ahayd inaad nolosha ila wado laakiin nolosha ayaad igu cidlaysay oo cidla ayaad dhigtay maadaama cidla ay dhigtayna dhaawac iga soo gaaray dhibtaas ayaan la mutay dhaawaca qofka soo gaara jirka waa la arkaa naburka laakiin dhaawaca qalbiga ka soo gaara isaga kaliya ayaa dareema laakiin qofka uu dhaawacan yahay haddii uu dareemi waayo dhibteeda ayay leedahay bal daawo walaal dhibta ka socota meesha ma isagaa dulmane ah ma isayadaa dulmane ah iniga kala saari doona commentiga xagga hoose igu qaabaysan ku baryaay kala garan waayo jaceylkayga aniga aan ku jeclaaday inuu khaldana iyo in kale hadda adi kaligaa ima jeclay aniga laftigayga waan ku jeclay soo ma ogid mise waxaa khaldanaya qofka aan jeclahay ayaa khaldanaya ayaan kala garan waayo hadda xalan samayno xalka ugu dhexeeya inaan isfahanno tinkaad kusoo laabato farxadeeni iyo nolosheeni aad soo celiso waa ogtahay faraatiga istil waan xidhanahayno waan ogahay farantiga ودمستكيدا أبانا mana dareemin aad iyo aad ayaan ugu xumaaday waxaan ka shalaayay sidee kaa noqotay ayaan dhahay enjoyow maxaa samaysay jaceylkan akhlaaqda kuu siinaya waa waxay aad ayaan ugu shalaayay waxaad ka dhigtay khalbigeeda dhaawacyan ayaad soo gay wixii ka dambeeya anigu haddii aan hadalka sii wado waan qalbi nugulaho laga yaabo inay lilmadu iga soo teexdo anigu nin weyn waxaan kan inaan lilmeeyo aan ka xishoonay kamarada horteedee inigoo la sii socdo midka saxsan iyo midka khaldan xagga dambe commentiga waan nii sheegay isku dayna videoga inaad dhammayso harayna kugu sheegay haddii aad nagu cusub tahay annaguna kugu culusnahay subscribe-ka badi oo nala dhac nagu nuuxnuuxi farta sheerta la wadaaga saxaabtaada tiimka haddii aad ku jirtayna sidaad noola joogtay noola joog hambalyo ayaa ini leenahay meeshaad naga daawadsana waa janalkii mudane xuseen iyo dhaawaca jacaylka oo dhibtiisa xagga dambe kasii daawataan meel walba waa ii dhintay wax walba waa ii soo koobnay alaa daraadaada waay aniga mid ayaan kuu sheegayaa runaantii waayo leh qalbigeyga intaan ka badan ma qaldanan horta inaan ku jeclaado waayo aniguba waan ku jeclaa isku day inay fahanto سلمان بريا سلمان اسكو دينا يفهم تورا aniga wax walba diyaar ayaan kula ahaa jecel waxaan ku jeclaa noloshayda maaragtay wallahi enjoy kuma fikiraya qof asaajaada ama qof oo door noocan u kala waxay soo jiiday gaariga iska ilaali soo ka soo darb bal ka soo darb hadda waa la eedaamayaa maxaa xalkeenu yahay waa ogtahay roob baa da'ay intaasoo lan adiga dartaaba u soo lugeeyey jaceylkaaga wasiirkiisa uma dulqaadan karo fiirota amina midaan kuu sheegaa run ahaantii aniga waa kuu sheegay waxaan u baahanahay qof jecel ahaa ayaan ahay oo jecelkaaga uma dul gaari ka soo leexa bal jecelkaaga uma dul in la xanaaneeyo meeshii laga doonayo in laga xanaaneeyo ayaad waxaad ku beddeshay inaad ikarkarisid ama igubtid oo nolosha xiriiri ah iga dhigtid hadda xal abaay aan ku dhameeyo dhegeyso oo nolosha xiriiri uga dhigtid midda ugu dambaysaan kuu sheegaa run ahaantii aniga silac walba waa u noolaan karaa oo jecelkaaga inta nolosheeda ka dhimanna diyaar ayaan wahay jecelkaaga aan ku haya in silaciisa aan maro balse maseer jecelkaaga xaggaaga uguma soo ordaayo
maseer adiga aan kuu qabo ama maseer ama wiilasha walaalahayga aan ku dhex jirto ama waxyaalaha aad samaynaysid maseer dartiisa jaceylkaaga uguma dul qaadan karo waxaa iyada ama banaanadaas inaan iska tago oo sila aan ku noolaado teeda kalena haddii aniga aan ku jeclahay habamalaynana adiga inaan ku caafidayo alaabiyo baardawantiyo waan ku jeclahay laakiin ku marabo iga goosatan igu soo gurtay always qabtaa anagala adigu